kale markay ku dhahdo qof waxaan kuu sheegaa oo kale Oh my god! no. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا قالوا halkaad nagala socotaan waa Caawiya Official. fadlan si aad ula socoto fiidiyoyadana soo socda subscribe saar, like, share na kama marno. commentiga ana waxaan nagu soo gudbin kartaa wax walba oo fikradiina. fadlan gambalaalka far si aad ula socoto fiidiyoyadana dambe. asxaabteeda aad u maasantihiin waa Caawiya Official teamkeeda. maanta waxaan idin haynaa barnaamij idin xiiso geliya. waxa garabkayga taagan waa team Caawiya Official. soo dhawaada. marka hore aan iska baro magacaygu waa Suldaan Cabdimalik. أيوة ما صرت ولكن سلطان عبد الملك عبد الواحد ومجهي محمد عبد القادر نور والله يقان عرويت ما شاء الله. هذا ما سنتي يعني هو هراء تقانين ومحمد إبراهيم حرسي سكوسو دواء ما تبرامج حيصل عيدين هاينو برامج كاسنو حاو كهاد ليا برامج مركز دعوتان أركتان إذن حيصل دقيقون إن شاء الله لقيس وعن دعوة وعن إن شاء الله عبد السودان سو دواء walaal waa ku dhowahay marka ugu horeysa jimco wanaagsan maanta waa maalin barakeysan oo jimco ah ma sha Allah waxaan leenahay asxaabteena ee halkaan nagala socota waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada waxaan kaloo rabnaa inaan YouTube-kan aan ku soo kordhino barnaamijyo cusub sanadka cusub 2020ka marka waxaan isku dayi doonaa inaan adinka idin qancino aad ma santahay waxaan la joogo gudoomiyaha Caawiya Official iyo xubin ka tirsan Caawiya Official aad iyo aad u maasantiin asxaabta soo dhawaada dhiirigeliyo subscribe comment kulli nooreeba waa ka soo dhawaad ما شاء الله. هذا ما سنتهي ويالكي عرويتي استاذ عرويتي ما انتو هايدين هاينا برامج حيث الله هراء واركنا برامج كاس نوعو نقدونا ما انت قفول بوحو كهاد ليا وحي لا يابكا هاي او هرو سو اركي حدو كسو اركا دانك جعيلكا ما انت قف هدو معنا حرير او سو مري xiriirkiis wixii la yaabka ahay oo soo arkay marka insha Allah nin walba oo ka hadlaya arin xasaasi ah qof walba wixii aadi ku noqday la yaab oo aadi markaas ama ka galiyay mise adiga jacayl xanuun badan oo kala kulmay mise aadi caqabad ku noqotay marka insha Allah maanta barnaamijka idin wacay oo aan barnaamijkeena asxaabteena aan la wadaagayna barnaamijkaas waay marka insha Allah soo dhawaada Suldaan waa ku dhawahay marka barnaamijka maanta noo heeso inoo soo deyn kartaa barnaamijka maanta idin hayo waa tii haday horni idin dhawaajiyay Suldaan adan ku bilaabina barnaamijka maanta Suldaan waxaa soo martay nolol soo martay saarajeenayo oo dhanka macnaha inkastoo weli way waa dareen karnaa laakiin nolosha kugu yaab ku qof kasta waa soo arkay xiriirka soo martay xiriirka kugu yaab ku badnaay oo kala kulantay la yaab ama macnaha wax kugu noqday fajac noo ugu radaari jirin insha Allah niyo asxaabta waxaan leeyahay mar kale soo dhawaada sida walaalkay su'aasha uu weydiiyay Maxamed Ibrahim Xirsi waxay noqonaysaa waxyaabaha ugu la yaabka badnaa ee kala soo kulmo inta macnaha shukaansiga iyo xiriirka jacaylkii la soo waday waxyaabaha ugu darna waxay ahayd gabar xilli hore ahayd almost waqti hore ahayd laakiin ka soo markaas isbaranay gabadhii waa si fiican isku fahamnay waa sheekaysanay qoftii aad u wax yar kadib adiga markaa isla soconay dhowr bilood waxay igu dhahday xariif waxaan kuu sheegaa ani adiga noo kala qaad baash marka aniga fajac uu noqotay qof caadi iskula socoteen oo xalay aad kala seexateen adinkoo sheekaysanayo jacaylkiina oo caadi iska haddana habeenkii kale markay ku dhahdo qofkii waxaan kuu sheegaa noo kala Oh my god! No. marka aniga fajac uu noqotay xalay aad kala seexateen adinkoo sheekaysanayo caadi iska haddana habeenkii kale markay ku dhahdo qofkii waxaan kuu sheegaa noo kala marka arrin waxay kugu noqonaysaa oo fajac maxaa dareentay markaas marka waxaa dhahay koos waxaa ii sheegtaa yani qaladka ani aan sameeyey wax ani aan sameeyey ii sheeg may qalad ma jiro saan waaye iska dhaaf brother ani adiga noo kala qaad safaaraha
marka maxaa No, 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 no. qofka kale si oo iskaga maxaa lahayay iskaga dheereen lahaa oo ka fikiraya fahant marka laakiin taasi insha allah waxaa laga soo gudbo waay maasha waxa allah laga soo gudbay oo way waa laga soo dareemi karnaa tagay waay. marka waxyaabaha ugu laabka badnaa ay kamid yahay taas maasha allah hadda way jirtaa No, 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 no. okay yaa horta aad u maasantihiin asxaabta horta niyow meesha xamar waa fahanteen marka wax caqabado badan waa la kulmay buuq iyo waxyar hadaa maqashaan karaal noqdaas aad iyo aad caqabado badan waa la kulmay inta magaalka joogtid horta arrinta ugu yaab badneed waxay fajac ay gelisay niyow hadda ka hore ahayd ani gabar aan saaxiibanahay marka niyow kii ugu balmisay gabar saaxiibteeda meel ay degan tahay markay balmisay gurigaas ay ugu No, 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 no. guriga marka odayga woo joogay kiina habartana woo joogtay maamadu maasha allah aad iyo aad marka odayga qolka fadhigoo joogaa maamadana qolka jiifkay joogta anina qol kale oo dhalinyarada dhiiggeliye marka No, 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 no. marka dhan liigu dhaqleniyo arrintii qabsatay waxay tahay gurigi gabarti marka waa qolkii waa galnay waa sheekaysanniyo wiil walaalkeeda imaada marki gabadhi saaxiibkeeda walaalkeeda aa imaada marka niyo No, 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 no. sariirta hoosteeda ku jira marka niyo saasee u ahayd gaagis musquloo galay anina meesha waa kasoo baxay marka waa liigsoo bixiyey qolka fadhigaa liigeliya qolka fadhigiyaa ku jiro aabiyaa ku jiro marka anina faasin dalaqa iska dhigaaday No, 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 no. marka niyo waa soo saasee u ahayd see waxay yeeshaa intaa bartiyaa inta wiilkiyaa ku jiro intana adoogiyaa kula jirta adiina saasee u ahayd ilaa amarkiisa adiga laba gabar aa isdagaalaya marka noo qorshe sameyn gabar kale dagaashimay haa marka buuqa iyaga la aaday aad iyo aad guriga marka waa lagu baniyay habarta qolkeeda buuq la iskugu furo marki habarta qolkeedna gadaaloo jiraa marki qolkan horoo soo jira halaa ku fogta halaasay eed marka niyo buuqa la furay la aaday saasaa kusoo dhuntiniyo arrintaas ay ugu yaab marka hadda arrintan arin lamid wiil aan saaxiibana mar iga sheekeeyey waxay ahayd wuxuu joogay halkaas iyo Sweden wuxuu dhahay gabadha hadda kor aan balansado dhahay qoftii markii u socono dhahay gurigeeda markaa galay oo sheekadii wixii noo bilaabatay taagan guriga waxaa soo galo dhahay walaalkeed sida hadda maxamed ay ku dhacdo kale marka guriga walaalkeed iyo aabeeda isla socdaan guriga soo galay gurigana waa guri apartment iyo wax faana irinka laga soo galo sida ma aha guriyaha xamar oo albaab laga galaayo qolal badan ma saddex qol camal leeyahay marka ninkaan markuu guriga soo galo markuu hore waxa la arkay kabihiisa banaanka yaalo baxar kuwa meesha ka imaan ninkaan kabihiisa la arkay hayay keeba kaas la gaba aniga madiina marka ana kulli xal ninkii markuu guriga galay gabadhii waxay sameysay inay weysay ninkii way qabatay waxay gelisay dahga waxay gelisay musqush marka guriga waa la soo galay waxa la weydiiyay kabahan iskala hadlay ninkaan kabahan iskala mar gabadha la gabadha dhaaday kabahan waxa ka tagay camal adeer ka tagay hadda ka soo gatay tagay ala kulli xal No, 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 no. marka gabadhii waxay sameysay ay kala xaraam soo galaa soo bacda musqusha gashay musqusha markay soo aaday gabadhii waxay dhahday raax ku sheegaa adiga intuu guriga ku jiro oro soo ninka wuu soo dhacay kabiisa hor u qaatay
إلى حامل No, 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 no. dhanka commentiga insha Allah wixii fikrada ah noo heesaan oo nagu dhiirigelinaysan waa nala wadaagi kartaan asxaabteena qaaliga ah saa idinka khuslin marka marka wajiyo cusubna waad arki doontaan insha Allah tiimka waa lagu soo kordhin doonaa wajiyo cusub asxaabay aad u mahadsantihiin wallahi xarweyntii arrintiisa hadda aad No, 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 no. asxaabta dhanba waxa ay sigooyin waa adiga waxaa u maleynayaa inay meesha oo lagu kala carro maya qosolka waa loo baahan yahay asxaabta inoo qoslaan maalin jimco waaye maalin waxaa waaye oo barakaysan ilaa qosl waa loo baahan yahay aad u mahadsantihiin notan ani arrin la yaab leh oo soo kulmay sax maalin aan qof xiriir lahayn la socday sax dhanka iyo macnaha dad badan ka saayo Madiino dharkeennay gaar ahaan xaafad oo gadaal dhahayo oo suuq boqol gadaasheeda aan gabadha shukaansanay xiriir nabada dhexeeyay muddo aan wada soconay marka gabadhii inta badan telefoon ku sheekaysan jirnay marka weli hore mu arkin aniga markaas cunug aad u yar ahay marka hadda ma xilli hore ahayd inta badan telefoon ku sheekaysan jirnay marka xilli gabadha waxaan barnaa hore qadkaas ka bartay mar walba ay soo diri jirtay marka sawiro oo adiga qaf yar oo qurux badan hakiisa qafka ila hadlooyin waxaa umaleeyaa inay weyda camal daadeeda haddii loo fiiriyo marka muddaa sheekaysanay xiriirka wuxuu socday maxay dhahday galbaha ka mid ah aan saaragno adiga meel oo waddo waxaa dhahay waddadaas mataqaanaa waddadaas aan iskugu imaanaynaa adiga waddo oo xaafadahan oo Madiina ka tirsan marka gabadhii waxaas dhahay marka wiil saaxiibkeyga la socday asxaab badan muddo ahayn asxaab wiilkii asraacnay waxaa dhahay saxaab maanta weligeena qof hore ulama kulmin markii daadeeda loo fiirin waxaa la ninka cunuga yariiska No, 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 no. qafti marka xaafadeeda marka xaafadeeda ma aqaanin xaafadeeda agteeda ay u balamisay oo aan ka saabay meeshii waa tagay marka meel kubad garoon oo kubad loo ciyaaraya gadaashiisa marka waxay dhahday meeshaas kubad loo ciyaaraya gadaasheeda birta geeskaas agteedan kusoo istaagaa meeshii ugu imaado cunug saaxiibkiisa meesha aan marayn aan inaag weyn arkay meesha aan marayn waa gurigeeda waa ag marnay iyo in guriga marka soo bixisay markaasaa saamka u dhaco koraa kasoo wareegsan garoonka dhinaca kale ka soo marnay si aan micnaha kor kow ugu arko qofta micnaha waxaas dhahay saaxiibkaa wuxuu ugu faan maanta xabad shidan oo kala kacsan No, 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 no. meeshii taagnaa barxad goosh kala taagnaa naag marka waxaa meesha soo istaagtay oo dhar waaweyn wadato oo naag weyn waxaa filayay No, 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 no. hadda geeska kusoo socnay wiilka saaxiibkii waxaa dhahay saxaawan oo meesha islaam maamaa taaganay markaas inay ugu qosle ama maamada balasatay igu yaabka mineed waaye arrin igu yaabisay qofkii adoo gabar yar sugaaya islaan waxaa ku imaada hooyadaa leeg marka qoftii marka waxaa midaa ku weydiinaa waxay tahay markii aad la hadlaysa teleefon oo kula hadlaysa mise message waxaan ku sheekaysan jirnay teleefon codkeedana cod oo waxay ugula hadli jirtaan cod yar cunug yar adiga markaas soo baxaysa camal ma ogi codkeeda ma sidaa ahaa mise sidaa iska dhigaysa codkeeda sida iska haysa rajeenayo waaweyn oo cid laakiin markii xitaa naagteeda naftirkeeda dooqay leedahay dareen leedahay inay ku jeclaatay laga yaabo sheekada ay dhamaystiro waxaa dhacday qaftii inaan meesha soo istaago meel geeskeeda camal ah cunugiyaa isku boojiyay sheekaa galnay markaasaa telefoonka codka inaa ka xiray waxaa dhacay horta hubso qofka inay iida tahay markaasaa dhigaa gashtay codka telefoonka inaa ka xiraa waxaa dhacay inaa telefoonka dhab siisano ani waan naxay waxaa dhahay ama maamada ee dhahday wiilkaasaa meeshii ii taagan hore usoo dhacmo markaasaa waxaa dhahay maamadii waxaan ku dhahay tee joogtaa haa dhahay kadib maamadan telefoonka qabatay waa magaaga marka waxaa dhahay maamada meesha taagan adiga
صح markaas waxay dhahay abo maamo ma ahane gabadhi waay gabadha tirishada yaristeeda kul hadda No, 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 no. maamo ma aan aniga waaye imaw marka isla markii No, 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 no. wiilka caada sacab oo telefoonka adi waaye diiwaan oo saaxiibkayga magaciisa hore niguma sheegin diiwaan saaxiibkayga aad u maasan tahay halkaana kaa salaama sheekadii hore usoo wada aragnay qosolka badneed asxaabta inaan la wadaagno aan isku dayay marka insha allah diiwaan waxaa diiwaan saaxiib orda tagaa dhaniyo islaanta waa tanahay islaantan waaye الله حواس تري markaas waxaa dhahay wuxuu dhahay marka wuxuu dhahay islaan weyn oo hooyeen oo kale anigu saa qaaba ula hadlama aqaani meesha naga wata صح marka sidii aan meesha ugu soo tagnay way soo bacday waxay dhahday maxaa dhacaya hilib aan macnaa ay bawaacmay marka walaalay hilib ku gabar yar ay ahayd in hilib No, 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 no. hilib qosolka badneed شكل يا والله بالعافية marka asxaabay aad u mahadsantihiin sheekooyinka quruxda badan aad la wadaagteen inta macnaha youtube-keena ku cusub oo hadda gadaal kaga soo biirtay asxaabta qaaliga ah subscribe inoo dhaha dhanka commentigana waxaa noogu soo gudbisanaa wax fikradiina ah oo aad nagu dhiirigelinaysaan iyo waxaa noogu soo kordhi kartaan inta noogu cusub inta hore noola socoteen iyagana like-ta noo saaraan hana noo sii shargalaan insha allah soo dhawaada maanta barnaamijka aan ka wada hadlaynay macnaha aan jeclaysan in asxaabteen la wadaagno oo qosolka ahay waa intaan marka insha allah sultaan soo dhawaad maxaad ku darsan lahayd adiga gabadh doona insha allah noola kulanto insha allah aad ma santiin saaniga farxin noo farxay insha allah like iyo subscribe kana ani laga arko insha allah noloshaan iyo video daawada waxaa u rajeynaa inuu subscribe noo dhaafin insha allah insha allah noloshaan iyo macnaad ama santiin goodbye